degmada Erar ayaa dadaal ugu jira kor u qaadista wacyiga bulshada ee dhinaca ka hortagga coronavirus-ka waana ka duqa dawladda hoose ee magaalada Erar Mudane Saciid Maxamed Xareed oo mikrofoonka la dhaxmaraya bartamaha magaalada Erar si bulshada loogu baraarujiyo khatarta uu leeyahay coronavirus isla markaasna ay bulshadu uga hortagto ganacsatada maqaaxiyaha in maqaaxidu ay farxalka ay ilaaliso sida saamuunta ay kordhiso si cid walba oo maqaaxida wax ka adeeganaysa ama cunto ka cunaysa inay gacmaheega dhaqato cid aan gacanteeda dhaqanin waa in laga ilaaliyo mid labaad tukaamada waxa la xandaabi irida albaabkiis nin walba sheedaad ka qaysbanaysa wax walba sheeda in laga qaato waxa muhiimada looga baahan waxa weeye gacmaheena ayaa nadaafadda la ilaalinaya mid kale ganacsatada magaalada waxaan faraynaa marka koobaad marka labaad iyo marka saddexaad yaana miceeshada shilin yaana lagu darin miceeshadu qiimeeyay xageegii hore taagnaato dhinaca kale bulshada ku dhaqan magaalada Erar sida waxgaradka SRTV la hadlay ayaa sheegay in la qaato awaamirta dawladda iyo waliba fariimaha bahda caafimaadka si looga hortago coronavirus-ka shaqada wado coronavirus-ka udka imika ibiday baa buufinaya aydi dawada kuloorin la yiraahdo kulkaad buufisaa marka dulkan qushaashka agteeda iyo biyo socdaan biyo fadhistaan halka ama buufinaya inta badan leedahay gaarigu kolku soo galo gaari dibida ka soo galayo dadada ka yimaado halkaas kuwa aan buufiya ay dadka buufisa baabuurta ma buufiya dadkii aan buufiya lugta ka bilaabiyo gacantooda buufiya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan degmada Erar dadweynaha ku nool anigu waxaan farayaa horta waxani waa awaamir ka soo baxday xukuumadda deegaanka degmada ka gobolka waxa weeye waxaan la inoo sheegayaa waa naftaada ilaasho nafta walaalka ilaalita ubadkaaga ilaali baa leeyahay naf wax ka macaan oo qofka yani looga digo halisaa horta ma jirto marka waxa weeyaan nafna laguma ciyaaro in la dhayalsadana waajib ma aha waxaan dadweynaha sharafta aan u sheegayaa warnimooba lafahaaga ilaali oo ka dalka ilaali oo ka dadweynaha ilaali marka haddaad ku madax adeegto naf isbaari kuma taalo guriga naf aad isgelinayso ku taali ma jirto waa naf waliba nafo badan galaafanaysa marka adeer haddaad dhimasho aad ku tala gasho dadka kale inaad halis geliso disho horta iska ilaali xanuunkanna dee ilaahay baa keenay بريا أصحابها حنون نفسه وجرين رسول كين مساجد اللي تكذو هو ممنوع نبينا واحد أمر كبحي dad muslim tahay wixii rasuulkeenu uu wax ka sareeyo lagu oran lahaa ma jirto sidoo kale waxa kormeer shaqo ku tagay guddiga wacyigelinta gobolka City iyagoo kurgalaya heerka uu taagan yahay wacyigelinta bulshada ee ku aadan dhinaca ka hortagga coronavirus-ka maadaama degmadu xuduud leedahay ismaamulka Diradhabe iyo waliba degmooyin kamid ah deegaanka Oromada ayna kulmiso ganacsatada beeraleyda ah maadaama ay degmadu qani ku tahay dhinaca wax soo saarka beeraha waana kan Abubakar Xaaji Cadaawe isku duwaha caafimaadka gobolka City oo hogaaminayay guddigan loo asaasay wacyigelinta iyo dhinaca ka hortagga coronavirus-ka gobolka City oo arintaasi ka hadlaya sidaad arkaysiinba waxaan ka wadnaa falaxalkii ayaan dadka ku baraarujinaynaa anagoo guddiga ayaan tusaynaa falaxalkii degmada Ereed waxaan baaq u soo jeedinayaa inay ka taxadiraan ay si adag uga doorsanaadaan caabuqan dadka adduunka sida adag u saameeyay sidoo kale waxa kale oo degmadan ay leedahay isu socod bay leedahay meel dalxiis ay leedahay beerana way leedahay loo soo doonto marka dadka imanaya bulshada inay saameyn weyn u keenan karaan baan ka filaynaa saadiraadii dadka imanaya dadka kaleba inay u falaxalaan inay ilaaliyaan iyakuna ay ka bulshadooda ilaaliyaan ay caafimaadkooda si fiican ula socdaan ayaan baaq u diraynaa mudane Xasan Ciise gudoomiyaha maamulka degmada Erar ayaa cadeeyay in culimada diinka waxgaradka oo ah lameenta bulshada isla markaasna ay bulshadu wax ka maqasho looga baahan yahay inay guntiga dheesha ugu xidhaan sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta ku aadan dhinaca ka hortagga coronavirus-ka culimada diinka aabayaasha ururada dhalinyarada ururada haweenka in ay wacyigelinta si buuxda u qaataan waxyaabaha ay fariimaha ururada caafimaadka ama hay'adaha caafimaadku ay noo soo gudbinayaan ee in lagu dhaqmo nalagu amrayo in aan sideeda ay u qaataan
mudane xasan ciise gudoomiyaha maamulka degmada ee gobolka City sidoo kale waxa uu xafiiska caafimaadka ka codsaday in laga caawiyo qalabka lagu baaro heerkulka qofka si loo laba jibaaro dadaalka loogu jiro hortagga coronavirus-ka waa sida hadalka uu dhigay xafiiska caafimaadka heer deegaan ilaa iyo meelaha ay khusayso dhan waxaan ka codsanaynaa qalabka cabirka baaskuuladaha yar ama cabirka ama minuuto lagu cabiro kulaylaha si aan u ogaano qofka haddii aan ka shakino meel aan ugu ogaan karo ugu taxliili karo qalabka cabirka ayaan ka codsanaynaa marka hore talabaad degmadu way balaaran tahay maadaama ay xadis fara badan degmadu leedahay siiba Oromiya iyo Dirdhabe iyo meelaha aadka noogu furan ay kamid yihiin waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka bal qalabka waxyaabahan wax ku kontrol lahayn ama aan cid aan ka shakinaba aan ku kala saari lahayn cidda soo galaysa iyo cidda ka baxaysa si aan u cabiro qalabyadaas iyo aan koolada iyo wixii la mid ah iyo golofyadaas si aan ka codsan lahayn in loo soo aan ka heli karo wasaaradda caafimaadka heer deegaan Cabdi Khadar Ismaaciil SRTV degmada Erar ee ka tirsan gobolka City.